dad aan la qasbin ku weyn tahay weynaynta nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee dalal kala duwan jooga ayaa la baxay geelan aad aragtaan oo ka badan 1,000 neef oo geel ah oo loogu talagalay xuska dhalashada suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee suuqaas aan ka soo gadnay bisiga Ilaahay ku qaalay masaakiinta siinayna ninka ka hadli kara ee diinta islaamka duminaya ee kitaabka ka been sheegayna anaga ugu run sheegayna anaga macallimiinta Soomaaliya kamida waa kulanay xoolahan aan isku darsanay waana soo gadnay waana qalaynaa masaakiintii marti sharafka sarana waan siinayna maanta oo ah 12ka bisha Mawlid ayaana lagu talagalay in qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho loo qaybiyo iyadoona geelkan ay baxsadeen dad muslimiin muxsiniin ah geelkan ayaa lagu soo bandhigay xarunta Daarul Mustafa ee degmada Kaxda oo uu gacanta ku hayo Sheekh Bukhari sanad kasta bisha Mawlid 12keeda ayaa lagu soo bandhigaa geelkan oo 1,200 oo neef oo geel ah kuwaas oo loogu talagalay in lagu xuso suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waligaana waa la qali jiray ya nabi maxamed baa intuu 100 geel soo yamani ka soo kaxeeyay madiina ka soo kaxeeyay masaakiintii ugu barwaaqeeyay maka ugu barwaaqeeyay Sheekh Bukhari oo gacanta ku haya geelan ayaa ka hadlay xuska nabigeena waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida dadka geelan ula baxeen waxauna fariin u diray dadka ka soo horjeeda xuska nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee qaybaha kala duwan deegaanka iyo ardayda iyo culimada iyo helulaahiga meesha jooga waxaan niyoonay Allah aqbale subhanahu wa ta'ala in aan halkan ku socodsiino xafladii balaarnayd ee ahayd xuska nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo ku salaysan dhalashada nabigeena kaleey salaatu wasalaam bisha Rabiicul Awwal ee haddaan ku jirno sanadka 1440 iyo 47 sanadka 1447 hijriga nabawiga sallallahu alayhi wa sallam bisha Rabiicul Awwal waxa jamacatu Mustafa ay ka raatub dhigatay inay xaflad balaaran oo heer sare lagu maamuusay jamacatu Mustafa iyo ahbaabta nabiga kaleey salaatu wasalaam ay xuska nabiga halkan ay ka dhigto oo ah Daarul Mustafa oo ku taala caasimadda Soomaaliya Muqdisho xaafadeeda mid kamid ah marka waxaanu leenahay anagu u jeedinayna wixii diinta islaamka ehelkeeda iyo inta ilaahay iyo nabigiisa jacayl kaleey salaatu wasalaam wajaa amatu rabbina xafladii lagu yaqaanay in halkan lagu sameeyo oo ah xuskii nabiga iyo ziyaaradii nabiga iyo mawlidkii nabiga inay halkan ka furan tahay ayaan u sheegaynaa iyadoo oo geela hadda dhabarkayga taagan oo dhan gaadhay 1,200 gaadhay wixii ka baxayba mooyeen hadda 2 neef in la qurbaaniyo la sadaqeeyaa ayaan ku wadaa geel intiisa kale waa dhan yahay marka daraad sabtid baa la soo gaday suuqa geel ee Muqdisho laga soo gaday siinka dheer 1,200 neef baa la soo gaday daraad sabtidii 2 neef hadda waa la socodsiiyey waa la sadaqeeyay waa xuskii nabiga waa ziyaaradii nabiga waa mawlidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku sheegay intii la kulmo in sadaqa la amro oo deedna macruuf la amro ayuu quraanka ilaahay ku sheegay jamacadu waxa marka caado waa jamacatu Mustafa intay kulanto markii uu soo dhow yahay mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam inay aan xoolo bixin ay dhahdo jamacadu xoolaheeda isku darsato geela ay soo gado deedna magaca ilaahay ku qalaan bismillaahi allahu akbar lagu qalo bismillaahina lagu cuno iyadoo la waafajinayo kitaabka iyo sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam fadhkuru isma allahi alayha sawafadu ilaahay oo hadiga nagu baray inay iyadoo saddex ku jooga lowga xiran bismillaahi allahu akbar lagu gowraco bismillaahina lagu cuno masaakiinta la siiyay iyo fuqarada iyo agoonta iyo xerti iyo intii ehlul ah culimada iyo marti sharafka sare iyo kuwa hoosaba
bulshada islaamku abtirsata iyadoo infiitiya loo qaadanaynin warqad loo goosanaynin albaabuhuna ay noo furan yihiin ciddii noo timaada rijaal wa nisaan siqaaran wa kibaaran inay aan ilaa bishu ka dhammaato aan xafladdaasi heerka sare lagu maamuusay inay daarul mustafa ka furan tahay baan u sheegaynaa caalamul islaam iyo inta ilaahayna jecel nabigana jecel xafladda nabiga lagu weynaynayana ku farxaysa marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wamacruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illahi fasawfa nuutiiha ajran cadiima laa khayra wax khayrihi ma ahaanin laa khayra khayr fii kathiirin wax fara badan ma dhex ahaanin kathiirkaas oo min najwaahum dadka kulankooda iyo faqooda iyo shirkooda ilaa man amara bisadaqatin mooye qofkii amara kulankiisa iyo shirkiisa iyo faqiisa sadaqa ku amrahaya mooye marka ilaahay aayadda wuxuu ku sheegay waa suuratunisee intii la kulmo oo la shiro deena sadaqa aan baxsanno qurbaan aan baxsanno liwajillaahi wax u baxsanno in la dhaho inuu ilaahay waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illaahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima ilaahay aakhir ka yidhi suura aayaddaas laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wamacruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima waa ayad qur'aana aayadda annagoo camal falaa intaan kulanay annagoo jamaaca xoolaha naga isku darsannay suuqaasaan ka soo gadnay bisig ilah baan ku qaalnay masaakiintaan siinaynaa ninka ka hadli kara ee diinta islaamka duminaya ee kitaabka ka been sheegayana annagaa ugu run sheegayna annagaa macallimiinta soomaalida ka mid a waa kulannay xoolaha naga isku darsannay waana soo gadnay waana qalaynaa masaakiintii marti sharafka sarena waan siinaynaa marka huhaada ha laga baxo bannaanka ha la yimaada kitaab ilahi weeradaya waa xuskii nabiga waa ziyaaradii nabiga geela nabigaan ku xusaynaa allaha noo aqbalo weligaanana waa la qali jiray ya nabi maxamed baa intuu 100 geela soo yamanii ka soo kaxeeyey madiina ka soo kaxeeyey masaakiintii ugu barwaaqeeyey maka ugu barwaaqeeyey oo hadigii la yaqaanaya 100 geelo nabigu sarqeeyey oo qurbaaniyey oo ilaahay ugu dhawaaday oo gacantiisa inta badan uu ku bireeyey sunnaha nabiguna kaa weeyo saxiixaynka qoray qofkii diinta yaqaanana waa yaqaanaa qofkan aqoonina annagaa barayno macallimiinta ka mid a geelu kiibuu la mid yahay nabigu soo galay ee maka uu ku qalay ee 100ka ahaa kana raadkiisaan ku dayanaynaa ya ilaahay baa wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allahu nabigaan raacaynaa geel 100 gaadhi hadduu nabigu uu salaqeeyey intuu xag iyo gobollo kale ka soo qaaday annaguna gobolka annagaan ka soo gadanay lacagtaan ku soo gadannay ya waana salaqaynayna in fiita la'aan hilibkaa soo doonta waan siinayna marti sharafka iyo culimada Soomaaliya iyo agoonta Soomaaliya iyo masaakiinta Soomaaliya waa geelaasu lacag la'aan baanu siinaynaa maraqiisa hilibkiisaba annagana hoos ha loo soo eego ha la fiiriyo xertaan ka warunin lacagtaas iyo axbaabtii caashiqiinta nabigaan ka qaadnay waa sadaqo waxaa weeye nabiga lagu maamuusayaa nabiga mawlidkiisa lagu dhigayaa tacliimkii nabiga weeye tacliimkii diinta islaamka weeye shacaarul islaam weeye ya annagu haddaan nahay culimadii Soomaaliya culimadaanadii horaaba saana bartay annaga waxa ma ahaan dhoodhoobayne annagu haddaan hadda aan sidaa samaynayno culimadii waxna barta asaasana bartay annaga marka waxaa weeye waa kitaabkii qur-aanka ahaa waa sunnihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay kuwa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga ku dhaqma dalka dhan allaha ka dhigo ee Soomaaliya muuminiintii marka meel jiraan dhan kuwa kitaabka ilaahay sunnaha nabiga ku dhaqma allaha ka dhigo waxa weeye sunnihii lagu yaqaanay weeye inay dadka islaamka ehelkiisu inay isku booriyaan ku anfal kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga la raaco wax kale isku boorin jiray wey marka waxa weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وحوي إنفاق في سبيل الله وفي طاعة الله وفي تعظيم الله وفي تعظيم الرسول الله وفي تعظيم شعائر دين الله marka waxa weeye shacairka islaamka ayuu kamid yahay geelan aan nabiga ku weyneynaa calayhi salaatu wasalaam nabigaan ku weyneynaa
إلى نبي ولا وين إله ولا وين يوي نبي ولا داعي ولا ولا داعي وي كلن انت لا كل مي حول اللي إلا من أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته فسوف نؤتيه أجرا عظيما وي كتابك القرآن كهل حور قفكنا له يا قفك هذا الكيسا كفلا سنها النبي هل حلالني كيلنا هذا الكيسا كفلا كتابك القرآن كا سنها النبي أن عمل فلينا إيلا سانو نقانا إيلا سانو هير قلنا إيلا سانو ربنا علمدين أنا حنا صبرت إيلا سانو برين waxaan leenahay hala farxo hala weyneeyo nabiga mawlidka hala dhigo ilaahay hanaga aqbalo geela inta dhan ilaa bishu ka dhamaato uu soconaya ay 1200 dhaafay waa jamaacatu mustafa iyo caashiqiinta nabiga kaleey salaatu wasalaam weeye adeegaas iyo khidmadaasu waxaan leenahay ilaahay caashiqiinta nabi maxamed iyo jamaacatu mustafa ba allah kor u qaado muuminiinta banaadka meel jiraan ba allah mideeyo kor u qaado inta islaamka iyo ehelkiisa nacab ilaahay sharkooda hanaga kaafiyo انت نبغى نشكر الله امتنا كافيو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله والحمد لله الفاتح